Assalaamu calaykum. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Muuqaalkan waxaa uga hadli doonaa jacaylka dhabta ah. Balse inta u gelin muuqaalkeena, fadlan haddii aad tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto kanaalkan, subscribe dheh, kadibna fura gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo halkaas soo gelino. Kuweenan haddii la weydiiyo jacayl, midkeena ugu wanaagsan wuxuu leeyahay jacaylku wuxuu ku bilowdaa dareen raaxo ah, kadib wuxuu u gudbaa dhimasho, markaas kadib wuxuu gaaraa heerka caashiqa, xiriir iyo hilow. kaasi waa jacaylka uunka ama basharka. laakiin haddii aan isweydiino intuu gaaraya jacaylka dhabta ah, yacni jacaylka aad jeceshahay Allah subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaan ka soo tagno inay waajib tahay inaad jeclaano Allah iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu quraanka dhowr meelood uga hadlay inay waajib tahay inaad jeclaano Allah iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam. haddii aan soo qaadano aayad ka mid ah aayadaha ku jira suuratu Tawba, آية 24 ee Rabbi subxaanahu wa ta'ala ku yiri: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. waxaad dhahdaa rasuulkii Allah, haddaad aabayaalkiina, caruurtiina, walaaladiina, haweenkiina, qaraabadiina, xoolo aad kasbateen, ganacsi aad ka cabsanaysaan inuu baaro, iyo guryo aad ka raali tihiin oo aad ka jeceshihiin inta la soo sheegay, Ilaahay rasuulkiisa iyo jihaadkiisa suga inta eebba ka keenayo amarkiisa, eebba ma hanuuniyo qoom faasiqiinta ka mid ah. sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay Allah jecelkiisa in ay ka dhalanayso janno, yacni inuu Allah subxaanahu wa ta'ala ku jeclaado waxay ka dhalanaysaa janno, taana waa mid xaqiiqo ah. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan garanno qadarka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan fahanno. تعسر إله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأدعته، إن المحب لمن يحب مضيع، في كل يوم يبتديك بنعم وأنت ذاك منهم مضيع. إلهي جنبيك جعل ضمانت مسلمين توشيغانيان ودماتين أفكك أشادنينا، لكن دقن كينا يفعاشينا هدي الإيغو ويقلاسنتهاي، كتابك إلهي ويقلاسنتهاي، سنة النبي ويقلاسنتهاي، مركز جعل عن شيء وجعل بينه. haddii aan nabi maxamed jecelnahay waan adeeci lahayn, ninba ninkii uu jecel yahay buu adeecay. waatan qiso ku saabsan ninkii aad looga sheekayn jiray ee Qays ahaa. ninkii Qays ahaa ayaa jacaylkii Leela ayuu u waashay, markaasuu derbiyada iska seexan jiray. maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa la arkay isagoo derbiga u dhakanaya. markaasaa lagu yiri, war Qayso, maanta walideeda ma waxay kuu geysay in aad derbiga dhunkatid? markaasuu yiri, derbigan aan dhukanayo isaga maahan, waxaan u jeedo dhukanaye ee derbiga gadaashiisa Leela ayaa degan oo jacaylkii Leela ayaa u dhukanaya buu yiri. maalin kale la arkay isagoo ay dhukanaya, markaasaa lagu yiri, war eygana maanta maxaa kugu dhajiyay? wuxuu yiri, aqalkii Leela ee ku jirta ayuu ka soo baxay. maxabada eeg. haddaan Ilaahay jecelnahay oo aan nabiga jecelnahay sallallahu alayhi wasallam, mujtamaceen dalkeenna iyo dadkeenna, haddii salaada la addimo, magaalada inta la xiro, baabuurta la joojiyo, basaska la joojiyo, dukaanada la xiro, ay masaajidu camirmi lahaayeen. مسجد إن مقادين بلو ولا سوق لها، لو كان حبك صادقا لأدعته، هذه جعلك ودبك يا ودعي لهد، إن المحب لمن يحب مضيع، نبنيك جعلها بوادعاي. dhalinyarada kubadda jecel, kuwa kubadda ciyaara isku ekeysiyaan, kuwa heesaha jecel, kuwa fanaaniinta la yiraahdo isku ekeysiyaan, kuwa siyaasiyiinta jecelna siyaasiyiinta isku ekeysiyaan, kuwii nabi maxamed jecelna nabi maxamed isku ekeysiyaan sallallahu alayhi wasallam. magaalada Madiina ayuu soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu arkay Madiina yahuudi la degnida asaar oo soomaysa maalinta Caashura la yiraahdo, waa 10 Muharram weeyaan. markaasuu nabigu ku yiri, waa maxay yahuuda maalinkan ay soomayso? markaasaa la yiri, waa maalinkii nabi Muuse iyo reer bani Israa'iil Ilaahay jalla wa ala badda u dilaaciyay, ee dariiqa Ilaahay uga jeexay badda, ee laga badbaadiyay halaaga ee cadowgii Fircoon la hadaagay weeyaan. nabi Muuse soomay calayhi salaam, annaga waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa, oo waa diinteena iyo nabigeena ayaa ku dayanayna. markaasuu nabigu saxaabadiisa ku yiri, annaga waa xaq leh Muuse sooma Caashura, qad bahdaagaarana buu nabigu yiri, sagalaadka ku daraya.
yuhuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamac muslimiinta caalamka ay joogaan maanta iyo dhallinyaradeenaba inteena badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka cibaadadii buu yuhuudda nebigu ku khilaafay annagana maanta dhaqankii baa ka qaadanay tarbiyadii baa ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay guurkii baan yuhuudda kaga dayanaynaa arxiishadii baan yuhuudda kaga dayanaynaa zaman ayaa imaan doona ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddeeda ninkii is yidhahdaa diinta baro oo diinta ku dhaqan oo diinta ku camalfal oo diinta danay ninkii is yidhaahdaa oo la mid noqonayo nin dhamac haya yacni dhabil naara nin gacanta ku hayo la mid noqon doonaa markaasay saxaabadii ku yidhaahdeen ninka diinta qabsada ee ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaasuu yidhi 50 nin ajarkooda buu qaadan doonaa nin saxaabada ka mid ayaa sare kacay buu yidhi ma 50 annagaa mise waa 50 iyagaa may 50 idinkaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo samankan diintoo fresh ayay heleen nebigii arkin calayhi salaatu wasalaam malaa'igtay soo degaysay arkayeen qur-aanka kolba aayad lagu soo dejinayay shareecada u dhammaystirmaysay maalintii nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejinayay iqra baa ugu horeysay aayadihii qur-aanka ugu dambeeyeyna waxay culimmada ku sheegaan alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradina lakum alislaama diina waxay kusoo degtay carafa muddo kadibna nebiga adduunyada wuu ka itiqaali doonaa waa aayadihii ugu dambeeyey ee nebiga lagu soo dejiyey ayay ka mid tahay aayadda saliga alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahay baa ku leh maanta diintiinnii baan idiin dhammaystirnay wa atmamtu calaykum nicmatii nimcadeydiina dushiinnii ayaa ku dhammaystiray nimcadu waa qur-aanka nimcadu waa sunnada nebiga nimcadu waa islaamnimada nimcadu waa hidaayadda nimcadu waa macrifada alla subxaanahu wa tacaala innaga maanta muslimiinteenna haddii nimcad la soo hadal qaado maxaan u haysanaa nimcad adduunyo adduunyadu waa nimcad waa sax mu'minka adduunyadiisa xalaasha waa nimcad laakiin waxaa ogaataa iyadoo nimcad ah adduunyadu haddana waa fidno wa ammaha binicmati rabbika faxadis markii aayaddaa kusoo degtay nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ana awlunnaasi quruuj idaa bucisu maalinta qiyaamo qalqiga dhulka ay ka soo bixi doonaan kan ugu horreeya dhulka soo bixi doona buu yidhi nebigu waa aniga qadiibuhum idaa ansitu maalinta bini'aadamka la aamusi doona kan u hadlaya buu yidhi nebigu waa aniga shaaficuhum idaa xabisuu marka dadka la joojiyo banka qiyaamo adceedda loo soo dhaweeyo madaxooda la soo dhigo qadar yar oo neel ah banka qiyaamo la joojiyo oo dhididka qofka ka soo baxay 70 xusu dhulka intoo galo dhan dib u soo bixi doono kan maalinta dadka u shafeeca qaadaya ee u wargeliyay nebigu wuxuu yidhi waa aniga mubashiruhum idaa xaa'izu maalinta dadka ay qoostaan kan u bishaaraynaya buu nebigu yidhi waa aniga calanka mahadda gacanteeda buu ku jiraa calanka mahadda aadan calayhi salaam oo abulbashar ah ibraahim qaliil calayhi salaam oo nebi ibraahim aad garanaysaan abul ambiyaa labadoodaas ka soo qaad buu nebigu yidhi maalinta qiyaamaha calankayga bay hoos joogayaan ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walaal nebigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam aa garanay qadarkiisa oo aan awlaadiina aan barno maxabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ciyaalkeena aan barno oo inaguna aan baranno maxabada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aan saligiisa badinno oo aan sunnihiisa qaadanno markaasuu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ina xasuusanayaa inagana maanta sunnihiisii baa ilownay dhaqankiisii baan ilownay shareecadiisii baan ilownay bal nebigoo lagu daydo dhallinyaradu waxay u arkaan dib u socodnimo dib u noqod bay u arkaan taana waa mid aan munaasab ahayn muuqaalkeena intaasay ku egyahay maanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu